kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal idilhantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka taariikhda dunida ood ka daawataan janalada halgan shacab miidiya iyo rajaside oo markaa soo gala isbuuciba laba maalin. waa hagaag waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena taariikhda dunida maanta dalka Mareykanka, iyadoo aan isdulisaagi doono dalkani waxa uu caan ku yahay iyo waxyaabaha aan laga aqoonin iyo waxa uu ku suntan yahay marka loo eego dunida kale. dalka Mareykanka waxaa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Federaalka ee Gobollada Midoobay ee Mareykanka. dalkan waa 50 gobol oo waaweyn oo isku tagay, waxaana ay qaateen magaca gobollada isku tagay ee Mareykanka. waxa uu ku yaalaa waqooyiga qaaradda Ameerika, waxaana uu xuduud la leeyahay wadamada ay ka mid yihiin Canada iyo Mexico. dalkan waxaa loo aqoonsaday dalka afraad ee dunida ugu weyn, waxaana dhulweynaha markaasi ka dhulweyn wadamada Ruushka, Canada iyo Shiinaha. tirada dadka Mareykanka u dhashay waxaa lagu qiyaasaa 320 milyan oo qof, waana tan ka dhigtay dalka saddexaad ee dunida ugu dadka badan. sidoo kalena waa dalka koowaad ay ku nool yihiin dad kala jinsiyad duwan. 60% dadka Mareykanka waa cadaan, halka dadka madowga ahna ay bulshada wadankaasi ka yihiin 13.2%. dalkan oo la aaminsan yahay in la degay muddo haatan laga joogo 15,000 oo sano, haddana dadkii ugu horreeyay ee degay waxaa la sheegay inay ahaayeen dad ka tegay qaaradda Yurub. caasimadda waddanka waxaa la yiraahdaa Washington DC. magaalada labaad oo ugu weyna waa New York. luuqadda rasmiga ee waddankana waa af Ingiriis. lacagta waddankaasi laga isticmaalana waa dollar, oo dunida si weyn looga yaqaano oo loo yaqaano US dollar. Mareykanku waxa uu madax banaanidiisa ka qaatay Ingiriiska oo gumaysan jiray 4 bishii Julaay sanadii 1776. gaadiidka waxay isu dhaafaan dhanka midig marka waddankaasi la joogo. dalkan aynu ka sheekaynayno ee Mareykanka waxaa soo maray dagaal sokeeye oo dad badan noloshooda galaafatay, waxaana uu ka dhashay isfaham u dhexeeyay madaxdii gobollada koonfureed iyo kuwii waqooyi ee madax banaanidii kadib. taariikhyahanada waxa ay sheegaan in dagaalkii sokeeye ee Mareykanka ka dhacay inuu galaaftay nolosha dad gaaraya 618,000 oo qof oo rayid ah iyo dhinacyadii dagaalamay oo isugu jira. Mareykanka waxa uu sidoo kale ku lug yeeshay dagaaladii koowaad iyo kii labaad ee dunida soo maray. sidoo kale Mareykanka ayaa ku duulay dalalka Vietnam, Ciraaq, oo 2 jeer ku duulay Afghanistan iyo xitaa Soomaaliya oo ciidamo markaasi ka yimaadeen. dhacdooyinka xanuunka badan ee isaga qabsadayna waxaa ka mid ah weerarkii lagu qaaday daarihii dunidan ugu dheeraa ee New York sanadii 2011 iyo weeraro kale oo lagu qaaday dhismooyin safaaradeed oo ku yaala bariga qaaradda Afrika. dhammaan weeraradaasina waxaa mas'uuliyadooda dusha saartay ururka Al-Qaacida. waa dal lagu tilmaamo inuu awood leeyahay, waxaana loo yaqaanaa super power. waa dalkii ugu horreeyay ee samaysta hub nuclear ah, waana dalkii ugu horreeyay ee haddana adeegsada. tirada ciidamada Ameerikaanka ee mar walba heeganka ah waxa ay ka badan yihiin 1 milyan oo ruux. dowladduna miisaaniyad ka badan 700 oo bilyan oo dollar ayay ku bixisaa ciidamadeeda. ciidamada Mareykanka ayaa adeegsada tiknoolajiyadda casriga ah xilliyada ay ku jiraan howlgallada. sidoo kale waxaa loo aqoonsan yahay dalka koowaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan, waxa uuna xubin ka yahay golaha guud ee qaramada midoobay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ururka gaashaanbuurta NATO, wadamada dhaqaalaha horumaray iyo ururo kale. xagga qoysaska haddii aynu eegno, dadka 18 sano ka yar ee isqaba waxaa lagu qiyaasaa 58%, halka 10% dumarka waddankaasi ay yihiin kuwa la furay. siyaasad ahaan waa dal faraha kula jira siyaasadaha dowladaha dunida saddexaad la yiraahdo, waxaana madaxweynihii hadba soo maraa dalkaasi uu aad uga hadlaa xaaladaha dunida oo dhan. dalkan waxaa ka jira 2 xisbi siyaasadeed kuwaasi oo hadba talada waddankaasi qaybsada, waxaana madaxweyne walba loo ogol yahay inuu 2 jeer oo isku xigta uu xilka hayn karo marka ay dadweynuhu doortaan.
tan iyo markii uu xorriyadda qaatay dalka Mareykanka waxaa soo maray 44 madaxweyne oo ay markaasi ugu dambeeyeen Barack Obama iyo Donald Trump iyo Joe Biden oo isagu hadda madaxweyne ka ah ama xukunka talada waddankaasi haya. Barack Obama ayaa la sheegay inuu noqday qofkii ugu horreeyay oo madow ah oo Mareykanka madaxweyne ka noqda. dhaqankana dalkan dad walba oo degan dhaqan u gooni ah ayay leeyihiin, waxaana cunidda ugu badan ee laga cuno laga sameeyaa qamadiga oo ka mid ah dalagyada dalkaasi ka baxa. Tufaaxa ayaa isna ka mid ah waxyaabaha aadka looga cuno. Xagga ciyaarahana, ciyaarta lagu jecel yahay Mareykanka waa basketball iyo ciyaaro kale oo feerka uu ka mid yahay. Ciyaaraha kubadda cagta, ciyaaryahanada waddankaasi meelo wanaagsan ayay markaasi ka gaareen, laakiin weligood koob ama mana guuleysan. dalkana waxa uu martigeliyay ciyaaraha koobka adduunka sanadii 1994. waagaag daawadayaal inta ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii taariikhda dunida oo kala socoteen janalada Halgan Shacab Media iyo Rajaside. intaan barnaamijkiisa xiga aan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.